لا إله إلا الله محمد رسول الله أتبناك هاي كذا لقول احتوري يا مسؤولية قاعدة يبان لي نمك مسؤولين إسكال شركة الطابعات وأنه مسؤولية تاعين عبد السلام محمد بدو وحوي نادر بالتوحيد كانت بسنكي وكاسو دولكي لغايه waxaaso inkaara iyo waxaaso dulmiya aan waxaan u tirinayaa shirkadaha daabacada kii jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weey bismillaahir rahmaanir rahiim baday halkan ku dhex taala waxa weey qashinka iyo banaanka iyo goob kasto nijaasaysan oo waxa weey deesaas u dayacay nimanka shirkadaha daabacada kun iyo ka tajeer baan u sheegnay oo aan hore ugu niri war ilmaada reeyal ilaahay ka cabsado ka daaya tawxiidkan iyo waxa weey bisinkan aad ku qoraysaan waxa weey calanka jamhuuriyadda Soomaaliland wana marka calan la daabacayo waxa weey hadii oo meel xafidan wixii oo leeyo shaygii waa sax waxa weey laakiin marka kani waa afkashbuha bisinkii baa ku yaala waa kana waxaad arkaysaa banaanka ka qaadnay eegata waa bisinkii baa ku yaala bisinka ka qaalisan wax walba bisinka ka qaalisan shay kasta waxa weey tawxiidka ka qaalisan shay kasta calanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo qashinka lagu dhex tuuray wana waa falxumo nimankan wax daabacay war ilaahay ka cabsado ka daayay ilayahu ilaahay ka cabsado ka daaya calanka tawxiidka oo hadii waxa weey iyo bisinkaba wataasoo calaamadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland bisinkii baa ku dhex qoran banaanka iyo kaadida hadana dhex taala banaankaas ayaa lagu tuuray walimayahu nimankan daabacada waxa leenay waa dhaka kala keeno ka daaya saddexda midab oo hatta dadka wuxuu daabacaysaa saddexda midab bal daabaco ka daayay bisinkan walba bisinka iyo waxa ka qaalisan waxa weey tawxiidka la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah adbanaaka haya kaadida lagu dhex tuuray yaa mas'uuliyadda qaaday baan leeyahay nimanka mas'uuliyiinta iskale shirkadda daabacada sagal jad iyo kuwa la midkaada ittaqullah ninkii loo jeeday Cabdullaahi Muuse oo isna isaaq ahaa habar iyo risaalo ku daraa reexisanaha wuxuu yiri istaageedid bay laba gacmood tabar ku yeeshaan tiska waxa la qaadaa markay teedin saabida haday midigtu kali taagan tahay tahar ma goyseen mid kale oo isla habar iyo risaalo wuxuu yiri yowla loo jeeday ninkii madi ahaadaaba waa maxamed quuse ma magoolo geed kaliya oo milic ku yaalaaye inkastoo mayay qooyo waa murxsanaadayb fiir Soomaalida xigmadeedii Ilaahay ma tusin laakiin xigmadeedii Ilaahay gabay buu galiyay waa shay taqaan kuma dhaqmayso waa arin loo baahan yahay jaamacadda inay baarto erayga ma taqaanaa midgaan dhaqanada kamido ugaarsigo war midgan yani falaarahan la hayo hawada gadina midgan ayuu ka yimid horta midgan علشان يعني حال حبريد وي horta erayga midgaan kala sheeyo ilaa xabado haysta xabada soo maxay waa falaadhidi wareero midgan oo ku dhufo ma taqaanaa bahasha way midgan horta midgaan halkaas ka timid gawaayna waa bahasha lagu ritay oo waa magac dhaqaniin horta waa asaas weeyaan oo magacaas midgan bal dib raadiyo taariikhda xagee ka timid ma taqaanaa erayga midgaan xawgiin waa midgan weey xagaaskii tumaal xawgiin waa tun oo shaqayso oo maaldi inta tunto kadib lacag hel ama tunka ku qaado ama tunka inta ku qaado waxal weey saas ma taqaanaa keen marka arrimaha noocaasa iyadana in laga wada hadlo waa muhiim oo dooda ma taqaanaa la galiyo laakiin oo la isweydiiyay taa marka waxay noqonaysaa in arinta shakhsi laga dhigo oo loo bedelin beeldi qabiil loo bedelin oo qofku hadduu xun yahay shakhsinimadiisa loo diiday wareebalow nin xun baa tahay isaga shakhsiga ku ekaato hadduu hanti haysto shaqaysto oo nin fiican yahay nin fiican ha noqdo hadduu xun yahayna isagoo shakhsiga waxa weeye maxaa ku raayay nin xun ha noqdo laakiin qabiil uu noqonin dhanka kale iyaga laftoodu way khaldameen way seeseen iyaga laftooda problem baan anu iyaga laftooda waxaan leeyahay
war been baa laydinka sheegayaa beenta intaa run moodeen baad iska saysaana waxbarta oo waxa weeye maxaa ku rahaye ha loo baahdo oo waxa weeye mataqaanaa farsamadiisii waxbarashadiisii doctor aan noqdaan oo injineer aan noqdaan oo waxa weeye maxaa ku rahaye iyaga ha loo baahdo kuwa dibadda jooga iyo gudaha jooga waxaan leeyahay beesha gabooye idinku isku kalsoonaada beel Soomaaliyeed ka fiican ma jirto سلام كبعدي أنا كوكس عنا شركة DP World سوق قارسيني راشين قبل كسنة قارهار مقالة عيرقابو وحنو دقيقة لوجو طلق علي ذاك ضيرتها كل المقالة عيرقابو قبل كسنة انتهى كبعدي waxaan ku wareejin doonaa insha Allah barasaabka gobolka ana halkaasi hadalla mahadcelin oo ku aadan xukuumadda Soomaaliland iyo waliba shirkadda DP World halkaasi ka soo kala jeediyay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse iyo waliba xogayaha fulinta gobolka Dr. Maxamuud Cabdi Cismaan Ayro waanu kala wareegaynaa shirkadda DP World raashinka loogu kun ilaado boqol qoys ka kooban marka sida la sheegay mas'uuliyiintu sida ugu fiican ugu haboon ayaan u gaarsiinaynaa dadkii loogu talagalay waana mahadsan cid kastoo ka soo shaqeysa waanu kala wareegaynaa shirkadda DP World raashinka la mahadle labaadka waxaan maqnaa shirkadda DP World oo deeqdan soo gaarsiisay waxaan cadeynaynaa inaan kala wareegnay 1200 qoys oo ay shirkadda DP World ka timid insha Allah bismillaahi kariim waxaan rajaynaynaa in sidii loogu talagalay aan u gaarsiino dadkan loogu talagalay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid walba ka soo shaqeysay khaasatan tiimka noo sida insha Allah bismillaahi kariim sidii loo qorsheeyayna waan u qaybin doonaa hadii Allah idin aad iyo aad baa mahadsantiin Ali Aadan Daahir wararka telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo